mudanayaal iyo marwooyin dhammaan madaxda iyo sharafta leh meesha isugu yimaadeen waa idin salaami salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda asalaam iga guddooma salaan shakhsi ah qadarin gaar ah huwan iga guddooma waana aad baan ugu faraxsanahay mahad gaarna aan u celinayaa in maanta laygu soo maamusay inaan imaado laygu yeeray xafladadan oo qiimaha wanaagsan leh. hadal badan ma ii furna waa laga hadlay yuu yahay xildhibaan daahir maxaa leeyahay generaal daahir cid uu yahay waa la wada yaqaanaa laakiin laba arrin baa meel iga bannaan baan u malaynayaa. mid waa iga ogaalgelin midna waa codsi. ogaalgelinta waxay tahay in aan is-xusuusino waa maxay golaha shacbiga muxuu yahay. golaha shacabka waa meeshii saldhigga u ahayd dowladnimada. dad badan baa indhahooda daraaw yani yasaya mararka qaarkood xuuqaya in golaha shacbiga uu yahay waxbaa laga sheegaa laakiin haddii mushkilo adag ay dhacdana meesha la eeganayo waa golaha shacabka ee go-aan ka gaara arrintaa xalliya xaaladda ha la xalliyo meesha la yidhaahdo la isugu tago waa xaggaas. saa daraaddeed mabda'iyan golaha shacabka waxaa weeyaan goobtii ama xaruntii ay ka soo burqanaysay nolosha siyaasadda dimuqraadiyeed ee dalka. ma aha meel oo kaftan gelaysa maaha waa meesha nolosha siyaasadeed la rabo inay ka soo burqato loo baahanya waa iyada. saa daraaddeed waxaa meeshay u baahan tahay xubnaheeda inay ahaadaan xubno qiimo iyo qadarintaa leh kartidaas leh aqoontaas iyo fiiro dheer leh in meesha loo soo xulo waa lagama maarmaan. waa ku mahadsan yahay generaal daahir inuu marata isu soo sharaxay oo waa duqowday gadaal isdhig aysan dhihin laakiin weli waxbaa igu haray oo tabartii iyo taagtii hayo oo isoo sharaxay waa ku mahadsan yahay. anoo ku hadlaya magaca odayaasha soomaaliyeed guud ahaan mahadsanid inaad soo istaagtay mudane generaal daahir taariikhdiisii wax badan kama sheegayo horaa loo sheegay laakiin walaalayaalo waxaa aan idin raba inaan xasuusiyo ninkan waa ninka keliya oo nool oo mutaystay bilad dahab. bilad dahab waxaanu siin jiray dadka dhintay. marka xataa waxaan xusuustaa markii dagaalkii oo cadow dhab ah na soo weeraray difaaciisa uu ku jiray waxaa loo qaatay inuu dhintay in meydkiisa uusan cadowga gacantiisa gelin gurmad qarana la sameeyey in lasoo qaado. marka yani waxaa la diidaya in gacanta uu galo cadow meydkiisa la qaado gurmad oo qaran ayaa la qaaday. waxaan u malaynayaa xataa generaal samantar allah yarxamu inuu ka qayb galay gurmadkaasi inuu martaas laakiin asagoo nool baa loo tagay oo difaac weli ku jira. marka waxa uu mudan yahay intaas kaliya haddaan ka sheego. marka biladana micnaheeda waxa weye micno badan ay leedahay waxa weeyaan sharaf oo haddii la ruuya qofka lagu maamusayo. soomaaliya waxay soo yeelatay 3 dastuur oo hirgalay kuwa badanaa jiro oo aan hirgelin kuwa la ansixiyay aan hirgelin kuwa badan oo qabi qoraal ku haray. marka 3 hirgashay waa dastuurkii oo 1960kii kii 79ka iyo kan hadda aan u abtaay federaalka oo aan ku jirno. noocyada xildhibaanada oo ka kooban yahay golaha shacabka kii 60kii iyo kanba waxay yidhahdaan 2 nooc weeyaan. nooc xildhibaano lasoo doorto iyo nooc oo marata mutaysi ah. mutaysigan waxaa lagu koobay kii 60kii iyo kanba waxay ku koobeen in ay ahaadaan madaxweyneyaasha oo xilka wareejiya si nabad ah ku wareejiya inay noqdaan mutaysi ku noqdaan xildhibaano oo ilaa inta ay cumrigooda jira ay joogaan intay nool yihiin. laakiin waxaa jira kan 79ka wuu ka duwanaa labadan. 3 nooc xildhibaan baa ku jiray. xildhibaan mutaysi oo kan madaxweynaha ah xildhibaan lasoo doortay oo kuwa lasoo doorta ah iyo xildhibaano kale la magacaabo 4 ilaa 6 ma xusuusta ilaa 6 inay ahaayeen malaynaa guddi qarana loo saari jiray dhammaan jamhuuriyadda shacbigeeda waa laga raadin jiray yaa wax qaran ah oo baxdow ah arrimo qarameed oo baxdow ah ha noqoto tacliinta ha noqoto suugaanta ha noqoto diinta yaa wax ku soo kordhiyey. 6daas qofood ayaa lasoo xuli jiray ayagoo mutaysi howlaha qaran ay qabteen awgeeda loogu magacaabi jiray magaciisa guddigaa samaynaya waa la ansixinaya madaxweynaha ku soo saaray xeer madaxweyne. dadkaas waxaa lagu soo qaaday dad badan baarlamaanka nagula jiray kii oo dobankii oo kacaanka oo waxaa mar walba nagula jiray dadka noocaas oo kale laga soo holo qaar tacliinta ayaa laga keeni jiray qaar suugaanta laga keeni jiray qaar difaaca laga keeni jiray
marka saasay u badnaayeen haddii maanta uu 70 يعني dastuurka 1979 uu jiri lahaa inna qarshe doorasho looma dirayna waa la magacaabi lahaa wuxuu ka mid noqon lahaa dadka mutaysiga qaran oo 6 qofood baxdow ah jumhuuriyadda in laga soo saarayo ayaa la samayn jiray marka taasuu ka mid noqon lahaa haddii oo maanta dastuurkaasi jiro laakiin ma jiro saa daraaddeed welina waxaa jirta haddana axsaab siyaasadeedna weli nooma samaysmin haddii aan la yidhaahdo shuruucdii waa jiraan laakiin nooma hirgelin weli ma istaagin hadday jiri lahayn martaa taasina waxaa kuraastii ilaa hadda waxaa weeyaan kuraas ku magacaaban beelo taasna waxaa weeye doorashaan dadbanna waxaa loo samaynayo waxa aan u soo gaarnay go-aankeeda waxa weeyaan haddii oo waxaa mahmaha jirta haddii la waayo bisha la waayo xidigaha lagu guuraa doorasho dadban waa xidigaha lagu guuraayo laakiin midaan u soconno waxaa weeye qof iyo cod ilaa laga gaarayo ayaanu ku soconnaa saa daraaddeed hadda beel ayaa joogtaa qabiil ayuu joogaa marka qabiilka waxaa loo samaynayaa marka waxaa weeyaan beesha iska leh beeshan oo hadda maanta meesha ku shirayso kursigan iska leh waxaan leenahay walaalayaalow kursigii waa idin soo noqday idinka ayuu maanta idinla yaalaa waa idinka iyo rabbigiina marka codsiga aniga aan jeedinayo waxay tahay beelay kursigan iska leh waxaa naga codsi ah inaad martaa qof ka fiican haddaa helaysaan jenaraal daahir ahlan wasahlan laakiin ma helaysaan qof oo nool oo bilo dahab wato oo intaas soo qabtay ma helaysaan marka codsigayga iyo soo jeedinteedu waxay tahay waxaan idinka codsanaynaa in aad jenaraal daahir ku soo biirisaan baarlamaanka 11aad golihiisa shacbiga ah waxaan ogahay in marataa qiimo badan iyo karti badan iyo caqli badan iyo arrimo badan oo dhoobaa Soomaaliya maanta u baahan tahay inuu ku soo kordhinayo maaha inuu shakhsi imaanayo maaha wuxuu wataa kariirad weyn oo khibrad ka buuxda wata dawladdu laba ay ku duushaa shimbiraha laba baad bay ku duulaan dawladnimadan laba baad bay ku duushaa baad waa maamul waa hal bacal oo ay ku duusho oo maamul oo cadaalad ku dhisan oo haddii dah furan maamulka kalena waa ciidan qalab sida ciidanka qalabka sida oo ilaaliya maamulkaas iyo ummaddiisa is ilaaliya waxaa noqdaan xoogga dalka masalan xilkiisa waxaa weeyaan dastuuriga ah inuu ilaaliyo gobonnimada cir dhul bad waxaasna wixii cadowga gudaha uu ka ilaaliyo booliska waxaasna xilkiisa waxaa weeyaan inuu hantida iyo ummadda iyo shacbiga qofka yani shakhsiyaadka amnigiisa ay ilaaliyaan sidaas daraaddeed waxaa weeyaan waa isbuuxiyaan wuxuu marka la imaanaya keliya ma aha jenaraal daahir lama imaanayo keliya aqoonta iyo kartida iyo marata waayo araga uu kusoo kasbaday xagga dhinaca oo militariga ama xukuumaddiisa laakiin siyaasiyanna wuu soo maamulay wasiir buu u noqday mar horena wuxuu usoo maamulay ciidan ahaan haddana waxa weeyaan siyaasaddii arrimaha diban waxbuu ka hayaa marka siyaasi iyo militari laba khibradood oo aad u wanaagsan buu kusoo kordhinaa haddii reer walba ay soo kordhiyaan ay soo xulaan kooda baxdowga ah dalkana waa toosa ummaddana waa toose anigu mar kale waxaan ku adkaysanayaa ma helaysaan midka roone daahir ha la soo codeeyo ahlan wasahlan assalaamu calaykum waraxmatullah